waare iyo sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida isu abaabuleen waxaan rabaa inaan mahad celiyo salaadiinta halkan qaarkood fadhiya oo ugu horeeyo ugaaska sida wanaagsan oo quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidamada qalabka sida amniga sida ay u ilaaliyeen amniga iyo sida weli u ilaalinayeen amniga aad iyo aad ayaan runtii ugu mahad celinayaa shacab weynaha reer beledweyne sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyagoo tabaalaysan waxaan ilaahay aan uga baryeennaa naxariistiisii jannadiisii intii dhimatay inta soo barakacdayna oo guryahooda ka soo tegayna oo lagu qiyaasayo 51,000 oo qoys laga yaabo boqolaalo kun oo qof inay yihiin oo caawa aanan haysan hooy iyo meel ay ku hoydaan runtii waa wax aad iyo aad looga naxo waxa weeye waa musiibo waa qadar allah qadaraha allahna waa aqbalaysaa laakiin ma qoonsanaysid waa wax ilaahay wato oo awooddeeda naga weyn hadda markaan soo dulmarayn dhulka xaqiiqatan waa arkaysaa wax naga awood badan inay tahay wixii aan soo aragnay sida biyaha u fadhiyaan dhulka iyo hadda markii aan tagnay annaga naftigeen oo aan dhex galnay magaalada inta ay biyaha joogaan oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan u adeeganayaan si normal ah waxa weeye waa wax awooddeena ka weyn laakiin bini aadan baan nahayo waa u diyaar garoobi karnaa waa yareyn karnaa laakiin qadar allah cid celin karta ma jirto waxaan u mahad celinayaa dowladihii runtii ka soo jawaabay baaqii dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fiidiyaan oo gurmadka ka soo qayb galaan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guud ahaan gaar ahaan dowladda Jabuuti oo noqotay dowladda ugu horreysay oo noo keentay wixii awooddeeda ahayd hadday tahay daawo hadday tahay biyo hadday tahay raashin waa walaal jira aad iyo aad ayaan runtii dowladda Jabuuti iyo reer Jabuutiba aan uga mahad celinayaa waxaan rabaa oo kale inaan mahad celiyo ciidamada AMISOM ee doorka ka qaateen kaalinta ka qaateen sidii dadka u badbaadin lahaayeen maxaa yeelay dadka fatahaadda intaan la eg oo aan caadiga ahayn oon hore Soomaali uga dhicin inta dhimatay iyo inta qaxday marka la fiiriyo runtii waxay ku timid tii ilaahay iyo runtii dadaal badan ay galeen ciidamada AMISOM sidii dadkaasi looga badbaadin lahaa dhibaatadaas ka jirta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iyagana NGO-yada non governmentalka oo runtii iyaga naftigooda qayb iyo kaalin weyn ka qaatay inay raashin iyo wax alla wixii karaankooda ah ay ku taakuleeyaan dadkan Soomaaliyeed ee tabaalaysan ganacsatada oo iyagana qayb weyn ka qaatay oo isxilqaamay oo aruuriya dhaqaale aad iyo aad u fara badan raashin badana u keenay dadka tabaalaysan ee walaalahooda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba oo qof walba oo Soomaali ah dareenkaas qaba inuu dadka waalihiisa oo dhibaataysan sidii u gargaari lahaa gacan u siin lahaa uu ka qaatay qayb aad iyo aad muhiim u ah waana dhaqan lagu yaqaano Soomaali waa sidaan ahaan jirnay weeye in qofkeena tabaalaysan oo dhibaataysan aan gacan siinno aan isgargaarno waana wax ilaahay uu na faray weeye mustaqbalka tan ugu dambaysa waan ugu soo noqdeen fatahaaddan waa tuu noo sharxay madaxweynaha sidii fatahaaddan ku timid marka in alla intii karaankeenna ah iyo cidday khusayso hadday tahay dowladaha deriska iyo hadday tahay cid kasta oo aan la kaashan karno inaan yarayno ama aan ka hortagno runtii musiibadan hadduu ilaah yidhaahdo marka ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan mar kale waa u mahad celinayaa sida ay qayb uga noqdeen gargaarkan dadka waalahooda ay gargaareen iyo dadka caalamka ah oo runtii iyaga naftooda qayb ka qaatay qaar badanna aan filayo inay noo sii socdaan waa mahadsantihiin waxaan ilaahay ka baryeennaa inuu dhibaatooyinkan musiibooyinka naga yareeyo waxa weeye waa inaan ilaahay u noqonno waa in qulubteenna wax walba waa qulubta weeye waxaan is leeyahay qulubteenna aad u xumaatay marka waxaa loo baahan yahay qulubteennii wanaagsanayd oo soomaalinimada ku jirtay oo wadannimada ku jirtay oo iscaawinta ku jirtay iyo isjaceylka ku jirtay iyo is ixtiraamka inaan dib u soo celinno